السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم حيران جنرال دكتور جيا كسو دادا ولا خليق أحمد وبقيو سبب مقالكيا إدين سو جاريو بإذن الله كريمة رب العالمين كنقضى ما أنت موضوعي وكسب سنية عنك محا وكينا فرجيجا هوين هديان قد قلنا مقال كينا ما أنت وكسب سنة فرجيجا عنك محا كينا سيديس اللوجو هرتجي كرا دور رب العالمين كنقضى مقال كلا كري ونشير كري أصحاب هذا هذا عنك فرجيجا mararka qaarkooda lama ogaan karo waxa sababay mararka qaarkooda lama ogaan karo sababta keentay waxa laga yaabaa naagta maqaarkeeda inuu xasaasiyad qabo maadooyin kiimikeed sida saabuunta ama daawooyinka qaarkooda sidoo kale saabuunta in ay markaasi ku tahay allergy saabuunada qaarkood in ay markaasi u keenaan cambarka cuncun ama isxuqid aan qoyaan lahayn sidoo kale waxa keeni kara cudurka sakrowga ama cudurka macaanka loo yaqaano wuxuu keeni karaa farjiga in uu markaasi cuncuno sidoo kale cudurada maqaarka ku dhaca cuncunka way keeni karaan cuduradaasi waxa uu ka dhigayaa maqaarka ama jirka mid qaleyl ah waxa laga yaabaa in uu u gudbiyo duleelka farjiga darbigiisa ama xuubka maqaarkiisa jilicsan markaas uu ku imaado ama uu ku reebo meeshaasi cuncun fara badan sidoo kale waxa kaloo keena cuncunka bakteeriyada qaarkooda oo ka dhasha wasaqda ama nadaafad darida taas oo keenta cuncun daran ama cuncun saa'id ah kaadida oo gugubtana way ay keeni kartaa sidoo kale waxa jira cudur wuxuu ka dhashaa galmada wuxuuna keenaa cuncun iyo dheecaan jaala ah sidoo kale naagta waxay dareemaysaa xanuun marka ay kaadinayso ama kaadidana way gubaysaa sidoo kale cuncunka wuxuu ka imaan karaa naagta marka ay dhiiga caadada ay xaydka kasoo istaagto ama ay kasoo dhamaato oo ay noqoto naag da weyn ama ay goosaba xilligii dhalmagooska ama caadagooska ay gaarto 40 sano dhaaftay ayaa loo yaqaan qofka markuu 40 sano ay dhaafto waxaa markaasi bilaabanaya xilliga dhalmagooska ama caadagooska kadib cambarka ama xubinta taranka waxay noqonaysaa mid halayl ah oo aan dheecaan lahayn sidoo kale waxaa keena walwalka daran taas keenaya hormoonada qaar inay soo daayaan waxyaabo keeni kara cuncun daawada saxda ah ee cuncunka farjiga markaasi waxaa la heli karaa marka lagu sameeyo qofka baaritaan sax ah laakiin si dabiici ah ayaa loo daaweyn karaa nadaafada ayaa ugu muhiimsan naagta ama qofka markaasi dareemaya waa inay nigiska ama waxyaabaha ay hoos ay ka xiran tahay ay bedeshaa markastaba bakteeriyada waxa ay dhalataa wasaqda badan marka ay gabadha ama haweeneyda dharka hoose ku daahdo ama ay isku daayso waxa dhalanaysa cuncun daran teeda kale saabuunta ay adeegsadaana waa in ay ahaato saabuun aan lahayn xasaasiyad ama kicinaysaba xasaasiyada mararka qaarkoodana caabuqa ka dhasha cuncunka waxa keena cudurada la iskugu gudbiyo sexualka ama isdhexgalka waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani fadlan muuqaalka la garay una share garay asxaabtaada wixii su'aalo ahna waa igu soo gudbin kartaa qaybta commentiga